annaga miyaa ka masuulahay in la baajiyo kulamadii aanu ballanay waxaan oran karaa labada dhinacba annaga qaybteedna waa qirayaa waa ka gaabinay sababtaan uga gaabinana waxaan galnay election iyo buuq kalaan galnay siyaasadeed marka taasaan qayb ka ah inaan ka gaabinno laakiin mid ogaada hawshaan hadda ma bilaaban waxay bilaabatay 2 sano iyo bar ka hor iyay bilaabatay hawshaan laakiin waxay ahayd wax soo socday oo marna la wada hadlayay marna wada hadalka uu joogsanayay anugu waa iga go'an runtii waa iga go'an tahay maaha wax siyaasad iyo election lagu galo waa ka weyn tahay waa masiir Soomaali weeye waa mustaqbal Soomaali weeye waa caruurteena mustaqbalkooda wax siyaasad iyo wax election wax ka weyn weeye marka waa wax taagan qof alla qofkii mas'uul ah oo damiir Soomaali leh waxa weeye inuu u istaago yaan uga shaqeeyay inta hadda joogta inay wada joogaan iyo inaan raadino Soomaaliland walaalaheena si midnimadeedii iyo wadajirkeennii aan soo celino waxaan aaminsanahay inay tahay muqaddas maxaa yeelay Soomaaliya lama kala goonayo cid aqoonsanaysa gobol ka tirsan Soomaaliyana ma jirto laakiin dhalinyarada iyo shacabka baa waqti laga luminaya waxay maraysaa maanta 30 sano maraysaa Soomaaliland madaxdeena wax walba waa sameeyeen meel walbana waa u galeen sidee ku heli lahaayeen aqoonsi macnaheedu waxay tahay dawlad Afrika ka tirsan oo la kala goonayo ma jirto haddii la kala gooyo Afrika oo dhan baa kala tagaysa waxay leeyihiin wadan walbaba grievance iyo dib baa ka jira dib qabiil baa ka jira dib diin ayaa ka jira dib juqraafi ayaa ka jira waxaas oo dhan anagu ma qabno haddaan nahay Soomaali ninka Soomaaliyeed oo raas Kambooni jooga hadduu saylac tago waa wadalkiisii weyn cid ka garanaysa ma jirto saas darteed waa ku khasbannahay inaan midowno inaan soo imaano waqti waa naga lumay waa dhab inta ay maqan yihiin annaga waxbaa naga maqan wax muhiim ah yaa naga maqan iyaguna ma istaagi karaan annaguna ma istaagi karno xaqiiqatanna waxa kala haya waxay tahay madaxda iyo siyaasiyiinta kala haya ummad shacab waa dad waala ah wax dhibaato ah oo ka dhaxeeya malaha waxa loo baahan yahay madaxdu inay soo yimaadaan iyagoo u dareeraya mustaqbalka caruurtooda iyagoo u dareeraya waxa aad iyo aad miyaa u haystay muqdisho iyo shirarka socda iyo Soomaaliya muddo waxay marnay muddo xamuumo xal ku shaqeeya waxa ka soo baxay markii ay wuxuu dhamaysteen hal go'aan oo Soomaaliland ay kaga hadleen runtii ereygaas ay Soomaaliland markaa waaweyn isu tagay aad u horeeyeen madaxweynayaasha dowladaas wuxuu ahaa erey aan ninkii dhageysiga uu yahay Soomaaliland oo Soomaaliland batutay kii xuduudda qaatay waxay ku yiraahdeen baarlamaankooda Soomaaliland waxa laga soo dooranayaa magaalada Xamar caqliga iyo hogaaminta Soomaaliland iyo ciidda mustaqbalkooda matalisa waxa laga daaraa Muqdisho su'aasha waxa weydiinaya kuwii soo jeediyay masaasay kala noqotay madamadiina ma cadaawada arrintaa mahadaraha loo qaado waxaan garanayaa dadka Soomaaliland oo dhan oo ahaa dadka xuduudda qaatay kuwii oo koodii wada dooreen weedaa ka soo baxay madaxweynayaasha Soomaaliya ee lixda ah maxay tahay eedaas macayba magooba magafro bareeba maweerba Soomaaliya shacabkeeda sheegi doona wuxuu ereygaas soo qabtay xamar baan idinka doonayaa oo ku taranaya ereygaas halkaas yaalaayo waxa uu yahay waa laga jawaabi doonaa haddii la wadayo halkaa maanta dadka Soomaaliya inay Soomaaliya wax wada qabsato oo isu qaado cidda jecel laakiin waxa weeye waa waxa gaaray Soomaaliland iyo caqliga xamar iyo shanta Soomaaliya Soomaaliya ma kala dad kala ay ma joogaan kuwa ay isoo kala waayeen ee garow sheegay ay fadhiya shanta umada hal milyan Soomaaliya weeysa taadu doonaya Soomaaliya la midoobo shanta madaxweynaha dowladda shaqay tusbaxaa waa ka fadhiya taariikhdiisi tawraad injiil iyo furqaan toona haysan hatilmaami aakhiro waxa tactaylayaan farmaajo waxa la yahay hatilmaami digo waa kaama koo jaray